waxaa nagala qabsaday ceel baraf niyajab miya waxaan dhahnaa iyadoo dhulkii oo dhan lasoo qabsaday oo hiiraan dagaal shabaab uu ka socdo oo buurihii caalmiska ee daacishka dagaalamayso maan dhahnaa dalkeena nabad waaye waa boqolkiiba boqol nabad waa dhulkeena saaxib maalinta ciidankeena guulaystaanna waa la sheega maalintay guul daraystaanna waa la sheega waxa guul daraystana ciidankeena ma ahe waa xasan sheekh wallaahi bilaahi ilaahay ugu og magacii ilaahan ku dhaarana xilkaa laydinka qaadaya haddaadna rabjayna allah waxa la qaadayana maxay tahay mataqaan dhammaantood dadka gaashadii taagnaayo hadalka ii diidanaa maxay ku dhawaaqayaan mataqaanaa qari warka waa in la qariyaa warka dalka xildhibaano ama wasiire niic la siiyey ereyga niic majaada ula jeedaa mise lacaga ula jeedaa dhibka kaloo jira xaqiiqda dhabta ah dadka maanta gadaashadii taagnaa beelaha yaryar ay u badan yihiin waxaa ula jeedaa beelaha yaryar beelaha yaryar beelaha niicada la siiyo oo yaryarka wad haye ii sheeg dhamaystir adigu laftigaa waa taqaanaa خلاص يا اخي والله يا خصوصي بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن داوديال idlaantiima meel walba aad joogtaan telefishinka RTN ayaad inaga daawanaysaan kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka dalka ayaa maanta furmay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaana daafuray xildhibaanada mucaarid iyo muxaafidba maanta golaha waa ay ku wada dhamaayeen xildhibaan Daaramin Jeesow waxa lagu arkay adoo golaha baarlamaanka maanta aad buuq ugu jirtid intaanay buuq galin ka hor khudbadii maanta madaxweynuhu ka jeediyay kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka maxaa kaaga baxayna bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka ugu horeysa waa idin salaamaya haddaad tihiin bahda RTN madaxweynuhu khudbada madaxweynaha in baarlamaanka sideediisa kalfadhiba oo madaxweynaha furo oo iska qudbeeyo waa wax dastuuri ah dadkana sharciga markii ay inay fuliyaan ay rabaan sharciga qaar lagama soo qaato qaarna lagama tago annaga waxaan rabnaa haddaan nahay xildhibaanada mucaaradka in shuruucda siday tahay loogu dhaqmo waa arkaysa maanta deganaashada ka jirtay golaha markiis madaxweynaha qudbeynayay runtii aad baan ugu ammaanayaa ayadoo aan ognahay inay xildhibaano Soomaaliyeed oo ganaaxan oo laga joojiyay si cadaalad darre looga joojiyay kalfadhiga baarlamaanka walow hadda aan maqlay waa la fasaxay fadhigii soo socda ka qayb galayeen aan maqlay haddana deganaasho ayay maanta muujiyeen xildhibaanada oo mucaaradka marka waan ugu mahadcelinayaa meel kastoo ay joogaan iyo xaalad kastoo ay ku sugan yihiin waan ugu mahadcelinayaa arrintaas siday u ilaaliyeen sharciga iyo muxuu ahay kala dambeynta baarlamaanka madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay guulo badan oo ay dawladdu xaqiijisay haddii ay tahay siyaasadda banaanka iyo siyaasadda gudahaba waxa ka mid ahayd waxyaabaha madaxweynuhu uu aad u sheegay in dhaqaalaha buluuga halkan laga sameyn doono si la mid ah waxa uu sheegay dayax gacmeed xarun laga diri doono Afrika oo idil in Soomaaliya laga sameyn doono guulahaas oo idil bal ka waran khudbada aad u maasantahay waa runta madaxweynaha qodbadooyinkiisa inta badan waxay u badnaayeen isxayeysiin ayay u badnaayeen madaxweynuhu horta marka ugu horeysa buluug dhaqaalaha buluugga markii la sameynaa horta badda ugu dheer adduunyada waddan naga badweyn inta jira ma umalaynayo 3,333 kilomitir oo badda oo muxuu ahay Indian Ocean iyo Black Sea muxuu ahay Red Sea intaba waa leenahay baddaas intaas leego ilaahayna siiyey kaliya waxay u baahan tahay in ammaankeeda la xafido madaxweynuhu wuxuu sheegay in lagu fashilmay ammaankii badda in la ilaalin waayo waad maqlayseen haddaad saxaafadda tihiin shabaakado iyo maraakiib badda dhacaysa shabaakada ay iska fureen oo diidaya muxuu ahay in mamnuuc ugu dhigaya inay malayga ay wataan xataa adduunyada aan laga gadanayn haddii lagu arko jariifka noocaana ayaa badda la dhex dhigay ciddii inay ilaalisay la rabayaa waaye waa dowladda maanta jirta madaxweynaha 2 goor oo madaxweyne soo noqday 2 times hadda ugu labaa marka in baddeena maanta madaxweynaha afkiisa uu ku qirto in la dhacay
jariifi lagu sameeyey muxuu ahay xadgudub loo geystay horta nasiib darro waa balaag dhaqaalaha buluuga ane haddee ilaahay unbaa uu noo keeni karay iyo khayraadkaas ilaahay as nagu midnaystiyo ilaaha nagu beeray meesha dhaqaalaha buluuga ilaaha nagu beeray laakiin waxaan annaga samaysanay maaha haddaan samaysanay madaxweynahan ayaa qarin lahaa intaasoo markab oo shabaakado ku tuurayaan qabanay intaasaan saas yeelnay ayuu dhihi lahay arrinta dayax gacmeedka dayax gacmeed waxaa laga sameeyaa dhul muxuu ahay lama degaan saxaro ah ayaa laga sameeya laga dhisaa in ceelmacaan iyo xamar meel u dhexaysa laga dhiso dayax gacmeed environmentiga dhibaatadaas geysanaya haddaad og tihiin ciddi dabcan dayax gacmeed macnihiisa taqaana unbaa ogaan karta iyo dadkii adduunyadaas wax ka arkay environmentiga uu xumaynayo dhulka lagu samaynayo meeshaas oo lagu samaynayo waxaa lagu sameeya zerveya lagu sameeya qubara loo keenaa soo indhayso soo aragto annagoo qubaro ma keensan meesha lagu samaynayo bulshada ku nool qiimeyn laguma sameyn wax baan ka baranaynaa camal dayax gacmeeda meesha noogala samey dayax gacmeedka meesha lagu samaynayo waxay moodaan garaash baabuuray moodaan ma aha dayax gacmeedka environmentiga dhib u geysanaa dhaqaalaha muxuu ahay dadka dhulkaas degan dhaqaalahooda dhibo u geysanaa caafimaad darrow keenaya qaac iyo boorow bixinaa adduunyada fiiriya telefishinada iyo discoverinka adduunyada fiiriya waxaa laga sameeyaa meelaha saxaraha ee lama degaanka ayaa la geeyaa laga dhisaa annagana waxaan rabnaa ceelmacaan iyo xamar meel u dhexaysa iyo warshiikh marka malawaaliga xisiis waa leedahay marka madaxweynuhu runtii anigu waa qosli maanta mar oo dayax gacmeedka arrintiisa ka hadlaya maalmaha ka dhexaysa qosla iga soo fakanay marka maba dareemayo madaxweynuhu xaqiiqatan dhibka uu keeni karo keliya waxaas u arkay uun shaqaalaa laga helaa dadaa nooga shaqayn doono wax baan ka baranayna intaasuu ka feeriyey laakiin dhinaca kale qubaraan keenaynaa meesha dayax gacmeedka dowladaha aan saaxiib ka nahay inay ku dijaabi sidaana laga dira la rabo meel ku habboonaan geynaynaa saanaan yeelaynaa inuu yidhaahda ahayd laakiin ma uusan dhihin waa tahay laakiin madaxweynaha markii uu hadlayay waxaa khudbadiisa qayb ka ahayd siyaasadda caalamka ama bannaanka ahi in ay dalalku saaxiiba leeyihiin soomaaliya ayna la shaqayn doonaan kuwa ay danahooda ka arkaan haddii ay soomaaliya yihiin madaxweynuhu ma soo hadal qaadin kamana hadalkii dhacdadii ka dhacday imaaraadka ee somalilan lagu casuumay ee dad badan oo soomaaliyeed ay bahdil u arkayeen dowladda soomaaliya dabcan madaxweynaha waaba kuu sheegay khudbadiisa xayeysiin asaga isku samaynahay u badnaayeen iyo kambeynkiisa waxyaabahaas dhacayoo dhan sooma hadal qaadan mana jeclo dowlad goboleedyadii kala tegey oo jubbaland ay gooni noqotay puntland gooni ay noqotay wadahadalkii iyo soomaaliya heshiiskii joogsaday waxaasoo dhan sooma hadal qaadan la dagaalanka al-shabaaba wax yar ka soo qaatay waad og tahay dalkeennii in muxuu ahay uu qabsaday shabaab maalin dhoweeto muddo waxaan jeclahay shalay unbaa kasoo horey daraata iyadoo tiyaatarka oo kambeyn muxuu ahay tiyaatarka oo kambeyn oo laleeyahay doorasho qof iyo coddaa looga kambeyn garayna laleeyahay iyadoo la socdo ayaa lasoo qabsaday daarunicma lasoo qabsaday dhulkii oo dhan cali axmed ceelkii cali axmed lasoo qabsaday ceel baraf lasoo qabsaday meel walba bes aadanya baa loo hareereysan besa hareersaneed magaalada muqdisho wax ka xiga oo kale oo magaalo ma lahaad waxaasoo dhan madaxweynuhu kama uusa hadlin dhib ka dhacaya keliya waxa u muuqato wax isaga isku xayeysiiyo iyo baalkii wax haba yaraatee khudbada madaxweynaha maanta aan ka qaato oo idhaahdo dalkay dan u tahay aniga ma arag mucaarad haddaad tihiin xildhibaan daara minjeesow mucaaridnimadiinuma waxa ay ku soo aruurtay khaasatan adiga mucaaridnimadaaduma waxay ku soo aruurtay inaad ciidanka qaranka niya jebiso oo meel hebela la qabsada aad tidhaahdid intii aad gulihii ciidanka sheegi lahayd ma guuldaradii ciidankunbaa sheegaysaa daahir waa mahadsan tahay feri horta warkeenna waddankeenna wuxuu u baahan yahay dhabka hadal in run laga hadlo
daraata ciidankeena inay soo jabeen oo dhib culus uu dhacay laa shakila lama qabsateen haddayna soo jabin tan kale ana xildhibaan jeesow ciidan ma niyad jibiyey anaa asalkeyga iyo jismigeyga ciidan ka samaysan yaraantay 18 sano anoo jiro ayaan waxaan ciidanka mid noqdeen kuliyad jaalisiyaad ka baxay waa aqaanaa ciidanka moraalkiisa wuxuu ku toosaa waxaan ahay xildhibaankii u doodaya ciidanka mushaarha loogu daro waxaa liigu jawaabay lacagta intay taallaa masuus badar lagu beeg ahaa waa ogtihiin ninkii madaxweynaha maanta noo ah waa ninkii lahaay $100 haddiin la qaadanaynin halaskala tago maantana $100 ayuu ogaaya isaga socodkiisii hore oo weliba 15 bilood ay ka maqneed maanta $100 oo kale wuxuu ugu daray farmaajo dowladdan ka horeysay $10 laga goostay 190 ayay qaataan $10 dowladdan ka goosatay oo canshuur u goosatay okay madaxweynuhu haddii moraalka iyo qoladan maanta qaaqaayilinaysa moraalka ciidanka hadday rabaan war xataa annaga mushaarka nagala jaree ha loogu daro $100 ha loogu daro $100 base hadda ma badno waa $100 ha loogu daro laakiin guulaha ciidanka intaad sheegi lahayd intaad meelaha la soo istaagtay ciidanka meelaha laga qabsaday soo lagama fiicneenna hadda ciidankeena haddii dhulkeena haddii la qabsado ma la qarina laakiin markii meel qabsadaa inaad sheegtay ahayd intii maanta aad dhihi lahayd meelaha laga inta meel ay qabsanayeen iyo meel walbo markay meel qabsadaan waa la sheegaa markay laga qabsadana waa la sheegaa soo niyad jab maaha marka ciidanka maxaa niyad jab ka dhigi maxaa niyad jab ka dhigaya waxaa nagala qabsadaa ceelbaraf niyad jab miya haye hadda waa laga saaray nimankii qabsaday may nimankii qabsaday waa laga saaray okay guul maaho war guushii iyo guuldarrada waa isla dhasheen waa isla socdaan annagoo ma waxaan dhahnaa iyadoo dhulkii oo dhan lasoo qabsaday oo hiiraan dagaal shabaab uu ka socdo oo buurihii caalmiska ee daacishka dagaalamayso maan dhahnaa dalkeena nabad waaye waa 100% nabad waa dhulkeena waraxaas waa laga fiican yahay dalka wuxuu u baahan yahay dhabka hadal in run laga sheego xaaladiisa la qiimeeyo meesha lagu guuldaraysta la sheego meesha guuldaradayda qari fiir ciidan ma guuldaraysto ilaa hoggaankiisa uu guuldaraysto moogi madaxweynaha ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa xukuma madaxweynaha taliyaha asluubta waxaa xukuma madaxweynaha taliyaha booliiska waxaa xukuma madaxweynaha taliyaha nabad sugidda waxaa xukuma madaxweynaha taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida waay taliyihii guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ku qanacsan guuldaradana guul bas in la sheego oon guuldarrada la sheegin laakiin waa laga fiicnaa xildhibaane dabcan see looga fiican yahay waxaan ku yidhi ciidankeena inas guulaystay inas guuldarrada wax ka dhexeeya male dagaalan intaa dhegeysa 77 dagaalkii oo 77 Ethiopia annaga waxaan tagnay meesha ugu dambaysa ee Adsakoor meel yiraahdaan tagnay waa ku soo jabnay haddana ma la qarina inaan soo jabnay oon dib aan xadkeena dib ugu soo noqonay oo dhulkii intaas leegoon qabsanay aan ka soo baxnay ma la qarina laakiin inaad tiirad ku taagsato oo dowladdaad ku mucaarado ahaan inaad ciidanka u adeegsatid xaaba ahaan inaad u adeegsatid ma kula saxan tahayna maba xaaba ahaan ma loo adeegsanayo ciidanka waxaan leeyahay mushaar u baahan yahay loo kordhiyo ciidanka huba u baahan yahay ha loo gado si cadowga ay siiga celiyaan arrinta markii la yimaado la dagaalanka al-shabaab mucaarad iyo muxaafid waxay ahayd in loo sinaado oo ciidanka qaranka la garab galaya waan u siminahay waa u siminahay guuldarrooyinkooda aad badi sheegtaa xildhibaane sida inta badan laga arko hadda guuldarrada iyo guusha waa laba isla dhashay oo isku ah anti isgarab socdo isduqaynayo saaxib maalinta ciidankeena guulaystaana waa la sheegaa maalintay guul daraystaana waa la sheegaa waxa guul daraystana ciidankeena ma ahe waa xasan sheekh haddii ciidanka mushaarkiisa kordhinayo oo mushaar dhis uu samaynayo haddii daliyaasha si siman oo qabyaalad ka fog loo dalacsiinayo haddii muxuu ahay ciidanka la dhiirigelinayo haddii ciidanka la dhex tagayo haddii ciidanka maxaa kaaga midkayna haddii ciidanka hubka loo soo gado oo hubka shabaabka hubkiisa hubka xoogan ciidanka in la siiyo ayaa ciidanka ku guulaystaan ciidan guul daraysta haddaad aragtay hoggaankiisa iyo taliskiisa guud ayaa guul daraystay ciidamadii macwisleyda ee muuqaalada laga soo duubay ee waraysiga laga qaaday waxay sheegeen in iyagoo 10 qofooda ay intaasoo al-shabaab sharafay leeyihin
waana aaminsanahay wiilka soomaaliyeed in geesinimadaas uu qabo oo iska celin karo laakiin wuxuu ku jawaabay ma la socotaa xabadihii markay naga dhammaayaan xabad keliyaalaan ridayni uu yiri fiirso maanta wiilka 25 nime daarnicm masaajid ku jirta dhageyso qurax u dhageyso maxaa rasaastooda gooy meesha furunta ay joogaan rasaasta inta taala ma la siiyo xildhibaane soo yaa qaadanaya mas-uuliyadda dhulalkii sanad ka hor la xoreeyey in maanta ay shacabkii beelaha u ahaadaan al-shabaab oo marka la yimaadaan taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida iyo xukuumadda ayaa qaadanaysa madaxweynaha iyo waxaa qaadanaya ra-iisul wasaaraha cid kale male oo qaadanaysa ma jiro waa tahay waxaa jirtay arrin kale oo ah in mucaaradka lagu dhaliilayey inaanay badi sheegin guulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed adiguna maanta waxaa jirtay xildhibaano gadaashaadi ka hadlayay dabcan oo ku dhaliilayey kelmad baa jirtay badi aad ka dhawaajisid ee ah xildhibaano ama wasiire niic la siiyey ereyga niic majaada ula jeedaa mise lacagaa ula jeedaa hal wasaarada waxaa iskale laba wasiir ku-xigeen marka wasiir ku-xigeen oo laba loo sii qeybiyey maxaad u taqaanaa adiga wasiir buux miya wasiir miya waa wasiiri wasiir ku-xigeen waay ama wasiiri wasiir hal wasaaradoo laba wasiir wasaaradda almina haddii hal wasiir ku-xigeen iyo wasiir ay leedahay wasiir ku-xigeen iyo wasiir dawla ay leedahay waa hal niic waa haafla kala gooy jab u kala jibi kana ku qanci baarlamaanka oo weliba loo rabo in baarlamaanka lagu abiyuus gareeyo fiir dhammaantood dadka gaashadii taagnaayo hadalka ii diidanaa maxay ku dhawaaqayaan mataqaanaa qari warka waa in la qariyaa warka dalka in la qariyo waxay diidayeen waxaa loo soo sheegay xildhibaan jeesow as hadlin haddii jeesow aad rabshayn waysin oo os hadlo oo meeshaas si nabaddu uga hadlo xilkaa la idinka qaadaa niicdiyayba usii baqaayiinba laakiin xildhibaan daaramin jeesow sidaadoo kale iyaguna waa xor inay hadlaan xaq u leeyihiin xaqay u leeyihiin marka anaga ka hadla kadib ma hadlaano gadashi aniga waa ugu soo markaan dhamaysto waa kasoo tage aniga maxaan u rabshayn waay waxaan aaminsanahay in xorriyada qowl ay tahay qofka wuxuu ku hadlayo marka waxay ku qanacsan yihiin leedahay niicda la siiyey niicda la siiyey ku qanacsan wallaahi billaahi ilaahay ugu og magacii ilaahan ku dhaarana xilkaa laydinka qaadaya haddaadna rabshaynin allah waxa la qaadayana maxay tahay mataqaan oo dalkoodii dhamma ay ku midkaynayeen waa wasiir ku-xigeen laba loo sii qaybiyey rubac maan dhahnaa marka tumi maan dhahnaa waxaan aan ku tilmaama anaad wasiir ku-xigeen la kala jebiyey ani waxaan ku tilmaama ma garanayo markii horeas nusahay oo wasiir buuxaad lehen oo saxiix lehen fiir xafiisay leeyihiin ama xafiisyadooda inta tagaan ay ka dhaxlaan marka jaranjaradii ani aan taagnahay ani mucaaradan ba ahayba waa sheegtay inaan mucaarad dhahay waa qirsana oo aan xukuumadda dhaliilaayo oo waxa lu samaynayo nimankaas inta soo baxay weliba walaalow dhibka kaloo jira xaqiiqda dhabta ah dadka maanta gadaashadii taagnay beelaha yaryar ay u badan yihiin oo la soo diray waxaa ula jeedaa beelaha yaryar beelaha niicada la siiyo oo yaryarka ah oo matalaad leedahay waxaa gadaasha xildhibaankiisa waa aniga kuma haystay beelaha yaryar xildhibaan way leeyihiin laakiin maxaa isku soo soocay waaba garan waaye bal adiga hadda tiifiyada gadaal ugu noqo fiiriya idinka isha mariya gadaasha waxaa taagnaa wasiir bashiir goobe waxaa taagnaa xildhibaan jeego xildhibaano kale taagneen dhammaantood wad haye ii sheeg dhammaystir adigu laftigaa waa taqaanaa خلاص يا اخي والله يا خصوصي والله يا xildhibaan jeega iyo wasiir bashiir goobe oo gadaasha taagnaa dadka yaryar miyaa ula jeedaa iyaga ana hadda hebel ma dhahay laakiin waxaan ku iri bas ka gudub su-aashada ay weydiin ka gudub inoo ka mid waa arkayn wixii jiraan ba arkaynimo wixii jiraan ba arkayn aawe maxay u soo joogjoogsan waayeen beelihii weynaaye maleeshiyaadka dhiminaaye oo meesha ku dhiminaaye iyo ciidanka u badnaay oo hubkii iyo taangiyaashii lahay ile weli qabaa'ilaadka hubka iska leh maxay gadaashadii u soo jooga waryaha ciidanka beentaan loogu sheegin annagaa dhulka haysan ii dhihi waayen daaramin josef waxaad u ololeysaa madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed madaxweyne sheekh shariif axmed tuuladiisii ama meesha uu asal ahaan ku dhashay dhowaan waxaa la wareegay al-shabaab halkii aad magaalada muqdisho adiga iyo isagaba aad madaxweynuhu ka dhaliili lahaydeen aad shirar ku qaban lahaydeen soo ma ahayn inuu baxo uu tago meeshaasi ciidanka xoogga dalkana uu qayb
siiyo oo garab siiyo xaq waa su-aashaas asaga inaad weydiisaa afiicneed hay asaga inaad weydiiso ma tiri halkaa tag maadaama aad adigu qayb ka tahay dadka anigu maantadan tan aan dhaqaajin haddii la yidhaahdo sarwaalkayga igu jiro dagaalkan aada waaya 6 bilood ba hadda ka hor waad arkayseen in 6 bilood aan soo joogay duurka oon shabaab ceyrida waa kuwaas dhaawaca meesha jiif oo dagaalka ku soo dhaawacmay waxaa jirtay garab hiil walaal loo bixiyey oo ciidamo iyo dad macawisleeya oo ka yimaaday hiiraan iyo ay soo aadeen halka lagu dagaalamayey waxaa la yidhi walaalnimadu macaana dadkaas garabkii la siiyey bal ka waran waa u hambalyayna garab maxaa la siiyey weliba waa meeshii 6 wiil ay ku dhimatay oo ciidanka ahayd garab maxaa la siiyey walaalnimada meeshaas inay ka bilaabato oona la sii adkeeyo ayaan rajaynaa insha allah soomaalidana inay sidaas isugu helisaan rajaynaa ee laga fogaado kuwaan dhahaya qari war waxay dhib ahoo dhaca haddii la qariyo dalkan soo mugubanayo waxay dhib ahoo dhaca haddii la qariyo dalkan soo mugubanayo hadda ka hor nin taliye ahaya waxaan u bixiyey magac qari soo baas dagaalka baalka qarax ka dhacay dhimashadaa la sheegay dadkii dhintay intaasaa dhimatay taliye raboodka bixinaya qari ha sheegan war qari balaayo ha ku qariso qofka qari yidhaahda dhib hantiis dhaco dhabaq meelbeel hooyaa ku wiil beeshay dadaa ku dhaawacmay dadaa ku dhintay wiilashii geesiyaalka daarnicm masaajidkeeda ku jiri muxuu ahay 25 iyagoo 5 ay ka dhimatay 10 ay ka dhaawacantay 10 aan ku soo herin caawa fiirsada rasaastaa naga goodowr laakiin mar dambe waa loo gurmaday dabcan laakiin meeqa saacadoo hareereysnay dhahaya fiiri Soomaaliya wiil geesiya waa ka dhashaa laakiin hogaamiye geesiya kama dhasho hogaamiye geesiya waxaan u aqaanaa qab markay dhacday helicopteraaba hadda aan haysanaa wiif jig meesha taga hogaami ciidanka adag dhiirigeli daaramin jose waxaa la leeyahay haddii niicda uu sheegayo macluumin wasiirada la siiyo qayb laga siin lahaa ama wasiir dowlo lagaa dhigi lahaa aniga shibaa dhiileedo ma qaylin lahayn meeshayda wasiir dowlo xaq uma leh mid waaweynaa xaq u leh taas haddii intaan xildhibaanka ahay 2000 iyo waxaan xildhibaan soo noqday iyo 6 ilaa intaan wasiir anoo raadina miya aragti laakiin haddii loo sii waa muslim ma rabo haddii oo lii siiyane waxaan samayn lahay sidii ilaahay dartiisa aan ugu shaqayn lahay qof uma sacbiseen aniga halagu midkeey uguma sacbiseen yaan lagaa qaadin inaad xildhibaan hadlaya gadaashiisa soo taagtid aad tiraahda qari waryaa ha sheegin waxaa sheegaysa shabaab ma arkin war shabaab waa aragn dhulkan shabaab ma haysta awlaa bashiir wasiir jenaraal bashiir dhulkan shabaab oo inta inaan ka baxay hiiraan aan ku dhashay ma tegi karaa dhul ma aha miyaa kaas inta inaan ka baxno ma aadi karnaa meeshii oo aan rabno ma tegi karnaa dhul ma aha miyaa kaas warni wax la inkariyo wax kalaa kala jira nimankan dalka way haystaan intii aad kici lahayd ma mediyaha oo keliya ka sheegay war aniga waa kacay waana dagaalamay hadday taagan tahay laakiin waa dagaalamaa waxaan u baahanahay in lii garab siiyo lii garab istaago weliba hadda meesha aniga aan deegaankayga ay ku badan yihiin kala aragto dugnaashada xurriyata qowlka haddaan hadal xun ku hadlo ana i dhibay haddaan hadal fiican aan ku hadlo waddankay anfacay laakiin inaad gadaashayda ka tiraahdeed ha hadlin ha sheegin waddanka run ha sheegin waryaa runta qari run in la sheegtayaa kuu baneeyay inaad gadaashayda ka tiraahdeed weliba aad wasiir tahay magaca aan wasiiraad ka tahay golo wasiiraad fadhiisisa aad tagtaa ilaa ama rubac ahaati golo wasiiraad tagtaa inaad ka tiraahda sharaf xumay ku tahay almiina haddii maanta xildhibaan caadi ah gadaashayda uu soo joogsan lahay oon xil kala hayn xilka xildhibaan nimadu wax u dheer ayna jirin haddii gadaashayda soo joogsan lahaa waxaan u arki lahaa xildhibaan walaalkay ah oo anoo qaldan isaxaaya laakiin nin camera lagu dabuutoo laleeyahay haddii isdaahir hadla ka daba hadla xilkooda dhanba intaas lagu siiyey xilka la siina uu yahay wasiir rubace wallaahi waa nasiib darra waxaan leeyahay ka fiirsada ogolaada weliba waxay u badan yihiin xildhibaanada oo one news timeka ah
maantay soo galeen birrina waa la tuura aad u mahadsan tahay xildhibaan daaramin jiiso ayuu ahaa